maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda amniga ee Soomaaliya ayaa wadajir u furay mid ka mid ah wadooyinka halbowlaha waa magaalada Muqdisho soo warbixinta warka inoogu soo dirtay wariyaheena Zainab Maxamed Aadan. wadada ka baxda shaqaalaha ee aada ilaa yaal barake ee degmada Hodan oo xidhneedin muddo ah ayaa maanta dib loo furay. furitaanka wadadaasi waxaa ku sugnaa wasiirka amniga xukuumadda, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo kan degmada Hodan. ugu horeyn gudoomiyaha degmada Hodan Maxamed Axmed Cantoobe ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed. gudoomiyuhu wuxuu sheegay in wadadan ay furan tahay shacabkana ay isticmaali karaan, isagoona gudoomiyuhu shacabka u sheegay inay ilaaliyaan amniga iyo marista shuruucda wadooyinka. in wadadaas maanta aan furno oo ummadda culayskii saarnaa ay ka digto wadadaas dadku waa u furan yihiin waana isticmaali karaan. waxaan ugu talagalnay dadka culayska haysta in culays ka yareeno. waa laga yaabaa maanta shaqada inta ay socoto in culays uu yareeyo inta shaqada ka dhamaanayso, laakiin wixii maanta ka dambeeya wadadan oo shaqada markay ku dhamaato waa furan tahay, ummadana waa isticmaali karaan. waxaan shacabka Soomaaliyeed dadka Muqdishaawiyiinta ka codsanayaa maadaama annaga aan waajibkana saarnaa aan ka soo bixinay dadaalena culayska qaadano ayaguna inay dhinaca amniga nagala shaqeeyaan sidoo kale nagala shaqeeyaan ilaalinta sharciga wadooyinka. ugu dambeyntii wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa isna dhankiisa shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan si ay iyaguna ugu furaan wadooyinka ay shacabka rabaan. waxaan ummadda Soomaaliyeed fariin dheer iyo cod gaaban u gaarsiinaynaa inay hay'adaha amniga la shaqeeyaan. anaga waxaan har habeen u taaganahay habeenkii saqda dhex u soconaa oo maalintana subax aroorta u taaganahay in shacabku waxyaalo u baahan hadaan noqonayd amni hadaan noqon lahayd socodka magaalada in loo fududeeyo. marka ayagana waxaan leeyahay shacabka in la shaqeeyaan hay'adaha amniga iyo maamulka ka jiro gobolka Banaadir ama degmada walba gudoomiyaheeda iyo maamulka in la shaqeeyaan. shacabkan oo mahadcelinaa. waxaan sidoo kale rajaynayaa immigration-ka dadka halkan jooga wadadan ilaa maanta inay shaqada hakad geliyaan ilaa wixii loo baahnaa ay siismeen doonaan in shaqada maanta in jiri doono immigration-ka wixii bari ka dambeeyay soo gudoomiyaha wadadan la isticmaali doono. xukuumadda Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay hore u ballan qaadeen in wixii hore jiri wax badan laga bedelo. marka waxaan naga go'an anaga wadooyinka inta dhiman magaalada in la furi doono wadada rabtaa haato in la furi doono. inkastoo wali ay xiran yihiin wadooyin badan oo muhiim u ah shacabka ayna u baahan yihiin in loo furo ayaa wadadan maanta la furay waxay iyaduna muhiim u tahay shacabka. Zainab Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.